maalmahan jimicsi ayaa sameynaysaa maxaa khaldan waayo mar walba ku arki jimicsi ayaa sameysaa maxaa jira dibka jira waxa waaye aniga mar walba waalidiinteyda riyan iyaan ku arkaa riyadaas mar walba anay dhibto marka waxaan rabaa waalidiinteyda cid dishay in mar walba aan ka soo erbiso yareedsid maxaa tixraac ku sameysay adayga wax tixraac kuma sameeyay bal saadaan sameyn rabaa waa in iskiga fasaxa abti adiga waa fikir leeyaysa bal fiiri waalidiinteyda sawirradooda inta ku jirto fiiri abti meeshan sawirkan anoo yar waaye hooyaday hayso markii aniga hooyaday mar walba riyadeeda aniga maskaxda iga qasto marka adiga waxa leedahay iska daa waxaan qaadanay ma iqaw bacdan abti marka adiga fikirka iska dhaaf aniga wax ima gaarayaan adiga nafsadaada ayaa daran waxaan diidayaa wiilkay inuu wax ku gaaro abti adiga fikirdaas noo isgelin aniga naftadeeda ilaahay ma fahanti marka adiga waxaad iska daa aniga waxa u baahanahay ducadaada oo kaliya abti soo daa ay wiilkay ducadeeda ayaa qabtay socod asxaabta maanta ninkaan horteel socod bacda wax buu ku sidaa wax muhiim inuu wata iska dhigi kartee nakeen bal maanta waan ka qaadinaa bunku urduna mudan oo ku duu socno anugu asxaabta ana bacda ka dafa inig is diyaar galaya ana diyaar waa maanta way mudan niyo aniga saacadan faadum u jooyay bacdiisii bacdan ku sii muxuu maxaa ku jiray sheeg bal baca ana leem ku murminaysi si godo fiiriya ha kuridan dhulka maya hooyadii ma saayashi lugtu wayna ka jira masibirkan ba khali galigaysa keen bal hadda niyo ku soo kooyay wariya awoodda see ku sii wariya حاو عرسة سمورة سبركي والدين تيدا تلي واقو سلامين ولا سودو محاكا عاوية تلي أخبار waxay u soo gaartay nin Saciid Salam Allah inuu xabseen ku xiray xilliga la siidin inay sheegtay raba oo qofkan miya ninka adiga doonaysid ha xilliga la siidin inay iga cabsan doonaya ha waa birtool ninka saacad deynay okay ciidankii waa kana ila soo xiriir waqti la soo deeyay ninka sada birta la deeyay okay waa inuu birtool insha Allah oo Saciid Salam
nin baa ku yimid adiga ku raadinayo wuxuuna i weydiiyey goorta adiga oo lagu soo deynayo adreeskiisa oo ii reebay mana sheegi karo wuxuu adiga ka damacsan yahay iyo wixii kaleento. aniga horta xabsiga biri ayaan ka baxayaa balse ninkii ii baahan anigu u sii meel banaan ayaan isku heli doonaa. Okay, sidaas ayaan kaaga tegay khayr badan. Hello, yaa tahay ninka waalidiinta dilay xeebta ayuu joogaa xeebta ugu tag hadaad doonaysa adee. Hello, yaa tahay hello. hey iga joog fikrad khaldan ayaa lagu soo sheegay balse aniga ma ahan ninka aad adiga doonayso ama aad rabtid inaad bishid ma ahan aniga qofka wax ka soo haleeyay waalidiinta inaad dilay dad umaleysid oo biskooldan qabso igu fuwaatana biskoolada aniga bistoola xaan ka qaadanaya hadaaba adiga oo dhuhaysid bistooladan hooy ugu dhufo aniga waa wareersanahay qofka waalidiintayda dilay waxaa leeshay akhbaar ina adiga oo wax ka og tahay balse aniga ma malaynaynin adayna ninka waalidiintaada dilay aloo yeel ayaa la yiraahdaa balse nakeen aniga adiga xaafada ayaan ku sheekaysanaynaa ma ahan meeshaan Okay, saaxib nakeen. marka hore gurigeyga waa kana aniga meeshaan in badan ay ugu dambeysay hadda ayaan imaaday soo dhawaaba makule soo dhawow fariis halkan ninka waalidiintaada dilay aqaan aniga hadda meeshuu ku dambeeyo balse aniga waxaan garanayaa inta laga helayo banaanaha waxaa macna jira ninkaasi meelo badan laga helo sida damasho kale meelo badan laga helayaa jirta ninkaas. okay waa ku fahmay damasho waan qaanaa balse waxaan rabaa tixraa inay siisid ninkaas xagiisa tixraa waan ku sii karaa laakiin ninkaas waxaa jira wiil asaga la dhashtay oo waxaa jira oo kaftamin oo caadi ahayn oo war maqlin ayaa jira laakiin waxa u maleynaya ninkaas adii usiga in war idinka dhex dhici doono balse aniga okay ninkaas magaciisa ma sheegi kartaa adii hore ninkaasna wuxuu joogaa damasha. okay Alooyeel walaakiisa waa kana alooyeelna macna ninkaas adiga awoodiisa meel ma gaartid labadiina anaan is afjaray maanta adile ma yahat hello waxaan ahaa nin journalista waxa akhbaar igu soo gaartay in dil walaalkaaga akhbaartaas waxaa ku qorneed nin la yiraahdo Saciid Saalim ninkaas wuxuu ku nastaa wadada dheer ku taala boondada hadda ninkaas u baahan tahay waxaad ka reeysaa boondada aan ku sheegay iska dhaaf adiga ninkaas aniga raadsanayo
khalaas waa dhammaatay anigaan u soo dhammaynayo luuq marola asilami istaag saaxib walaakii ayaa laba qof ku dishay anigoo walaalkaa dilay ayaana adiga ku dilayaa hadalkiisii ma anficine warqabta horyaa sidii qooliyada camal u dhadhaxariga warkac waryaa الو صالح مين ها adiga walaakii ayaad u dhamaysay anigana saaxiibka ayaan u dhamaysay saaxiibka waxaad ka doonay wadada dheer buundada ku taalo ما دحي كرتو سعيد مايا سعيد صاحب سري ما حقو دحي يا قدلي ايش هيك صاحب سعيد سالم الى هذا aniga waxaa dilay aloo yeelo wuxuuna dilaa damasha aniga waqtigeyga wuu dhamaaday bis waa مايا
adiga aabbe maxaad ka raadinaysaa goor hore ayuu geeriyooday walaakiigana adiga ayaa dilay waa lii sheegay wax walba war maxaad la taagantaa meesha aabbaha aduu geeriyoodo anaaba rababa balse gacantay kuma geeriyoonin saqiirnimo rabo saasaantiisaa laga dareemaa adigna duurkii ayaad igu imaatay hadal badan haan buuxsho qoryaan wata waa kas bistooladan waa ku daray haddaa rag shantaada farood iskaga dhici war midkaa waxba iima tara aniga ee awooddeeda ayaan ku tashtaa haddaa ku tashino iskeen banaanka shantaada farood iska celi meesha waxaad haysa suudaa aabbaha waalidiintii dilay adiga saaxiibkii ayaa dishay wartaas been kuma sheegin taas adiga been kuma sheegin balse adiga noloshaada oo dhan duurkan ayaa ku soo afjaraya oo adiga ku dhalatay